banaanbaxayaashan iyo horkacayeen qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Mombasa ayaa waxa horseed u ahaa ururada bulshada rayidka kuwa u dooda xuquuqul insaanka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Mombasa waxaana ujeedka ugu weyn ee dibadbaxooda u ahaa sare u kaca qiimaha badeecooyinka muhiimka iyo waliba sidoo kale sicir bararka dalka ku soo siyaaday waxaa la yiraahdaa Maxamed Ciise Samatar waxaan taaganahay xildhibaan bita maanta meesha waxaan u joognaa inaan ku qaylino dawladda wixii tax iyo VAT la hoos dhigo waxa weeyaan noloshii baa xumaatay oo wixii la iibsan lahaa baa qaali noqday marka talabaadna waxaan ka rabnaa dawladda inay fuelka leviga ka joojiyaan oo VAT-ga ka joojiyaan oo policy keenaan wixii dukaamada laga iibsan lahaa ay hoos u dhacdo ka rajaynaynaa dawladdu horta inta waxaan ka rajaynaynaa in VAT-ga laga jabiyaan oo fuel leviga hoos ka dhigaan waxa weeyaan hadda waxay kordhiyeen ungadii bay kordhiyeen jabaati baradhadii iyo jabaati wixii bay kordhiyeen waxaana waxa weeyaan waxa iibsada dadka hoose marka waxaan ka rabnaa inay jabiyaan oo hoos ka dhigaan oo taxka ka gooyaan haddii kale si kale khatar baan ku jirnaa shaqooyinkii baa dhamaan waad artaa meelaha kale fuel levy waa la joojiyay iyakiina si weyn sii kordhiyeenba marka waa qalad they have to subsidize ka dhigaan fuel levyga insha Allah dibadbaxayaashan ayaa waxay ku dhawaaqayeen hal ku dhigay ay ku muujinayaan sida ay ugu xun yihiin sicir bararka iyo qiimaha nolosha ee kor u kacay Tumeona hii njaa imesababisha wizi, imesababisha maafu, imesababisha depression. Hata tumeona mmoja katika polisi wiki iliyopita waliweza kujitoa uhai wao ili mradi kwa sababu walikuwa wanakuwa na msongamano wa mawazo ya kimaisha kwa hali tete iliyoko. Pia tunaomba kwamba hao politician wakiendelea kufanya campaign zao basi waweze kuwafikiria kwamba bila chakula kama mwanakura sitaweza kufika pale, basi iwe ni mstari wao wa mbele kuweza kusaidia serikali iwapo kweli wanataka kura kutoka kwetu, maana bila chakula ukiwa na njaa kura zitakuwa ni ngumu sisi kutoka kwenda kupiga kura. goobta dibadbaxani ka dhacay oo lagu magacaabo fagaaraha Uhuru Garden ayaa waxa lagu arkay ciidanka booliska ee ka hortaga rabshadaha oo hareereeyay halkaasi si ay uga hortagaan haddii dibadbaxani wax rabshadaha ay ka dhashaan. halkan aan ku suganahay waa wadada Moi Avenue ee magaalada Mombasa. dibadbaxayaashan ayaa waxay ka cabanayaan qiimaha nolosha oo aad u kacay iyagoo dawladda ugu baaqay inay wax ka qabato maciishada oo aad u kacday. Maxamed Cabdi Bootaan warbaahinta Star bartamaha magaalada Mombasa.